سورة القارعة وسورة بقولي كوباد سورة قرانكا وسورة كسو دكتي مقالة مكة كان كوبان كوي طبان آيادود أفرتن كلمدود يبقول كنتوني سديد حروف سورة وحي كورميسا حالة دادك إمالنت قيامها عدي عمل وناكسن لتمادا وحي كون نولان نول راحله عدي سعمل حن لتمادنا وحوهي جيدو نقون عذاب كهاوية فسر كمعناها سورة دا بسم الله الرحمن الرحيم مقع الله ينكو بالله بيناء نحريس قودي متقار أهبا نحريستا القارعة إلهي وحوكو دارتي القارعة مقع كمدا مقع يدا مالنت قيامي معناه دون يهي مالنت قلوبتو اي قراع ميسو ما القارعة maxay tahay qaaricadu yacni ilaahay wuxuu rabaa inuu ku tusiyo muhiimadda maalintan ay leedahay sidaa awgeed wuxuu kugu baraarujinayaa waa tuma qaaricadu si uu kugu sheego jawaabtood u xasuusnaatid wamaa adraaka ma alqaarica maxaa ku ogeysiiyey rasuulkii ilaahayow alqaarica waxay tahay yawma yakuunu الناس كالفراش المبثوث ومالن أي دتك نقونيان سيدا بلنباليس لفرديي يعني سو صعد كيسي صعد كدتك أوجد وحلمودا بلنباليس فردسن بلنباليس سنة وعيان يرير أو دولة فندا تدبك ينالك ميشو كبحيو معناها جودي آيدا آيادني waxay noo tilmaantay farabadnaanta dadka awgeed iyo isu socodka dhexdooda waxa la moodaa sidii balanbaalis waxaase laga yaabaa in meeshaas dadku ay joogaan oo ardul mahshar dhulka la iska soo bixinayo inaanu maalintaasi lahayn cufus jiidad ama magnadka dhulkeenu leeyahay ee uu ku hayo noolaha korkiisa ku nool wallahu a'lam وتكون الجبال كالعهن المنفوش oo ay buuruhuna noqonayaan sida suuf la fagay macnaha guud ee aayadda ilaahay wuxuu sheegay in buurtii dhamayd ee culeyskeedu aynu naqaanay in maalinta ay weynayso miisaankeeda oo ay noqonayso sida cudbi gacmaha lagu fagay oo lagu googooyay oo kale dabcan maalinta qiyaame way ka duwan tahay qaanuunada aynu ku naqaano adduunkan ee ilaahay uu shay kastaba siiyey qaanuun ahaan tusaale ahaan mindida ilaahay wuxuu siiyey inay goyso wixii lagu jaro halka buurahana la siiyey inay miisaamaan dhulka oo aanu dhulku inala ruxmin markuu wareegayo hase ahaatee maalinta qiyaame qaanuunadaas kama jiraan halkaas oo buurtii waxay noqonaysaa sida suufka oo waxay waayeysaa miisaankeedii waxaana suurtagal ah in cufus jiidad aanu halkaas jirin wallahu a'lam فأما من ثقلت موازينه عدي أي عصلاته ميسان كيسو يعني حسنات كيسو عصلاته فهو في عيشة راضية إساقو حكوسو قنيا نول راليا يعني جنة يوغليا روحا حسنات كيسو عصلاته وأما من خفت موازينه عدي أي فضاته ميسان كيسو يعني عدي حسنات كيسو يراضو حمانيهيسو أي بطان فأمه هاوية هو يدي أما هويجيسو وهاوية وما أدراك ما هي محاكو جيسي رسولك إلهيو وحي تهي هاويو نار حامية ونار كلول يعني هاوية ونار كلول أولا الشدي إلهي بان كما قنقلناي معناها قودي آيادا عذابك الناريد وحوكا كوبين يهي تضبات النارود oo mid kasta la mid tahay xagga kuleelka dabka adduunyada waxaana toddobaatan ka laga soo soocay xabad kamida oo lagu tuuray badda laba jeer si ay u qabowdo kadibna dhulka ayaa la keenay oo waa dabka aynu tamartiisa wax ku karsanno waxayna saxaabadu nabiga ku dhaheen sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaaranay haddii xabadaasi oo kaliya ay ahaan lahayd ayaa ku filnaan lahayd in wax lagu cadaabo إلهي سبحانه وتعالى إساقنا حريسيه هينجا بدباديو عذابه سأدوني يا آخربا وولالكينا ياسر مختار إذن لدون يقوش لبدا دارود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.